habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka waa Cusmaan Cabdi Xasan qodobada wararkeena caawa ugu waaweyn waxay kala yihiin xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa difaacay in Mareykanka ay ka soo baxaan dalka Afghanistan isaga oo sheegay in sii joogis aysan waxba kordhinayn warbixin dheeraad ah ayaan idinkaga haynaa wararkeena kalena waxa kamid ah heerkulka xaddaafka maalintii ayaa laabmay Nigeria ololka shidaalka ayaa noloshiina sii adkaynaya doorashada xubnaha aqalka sare ku matali doona maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa ka socota magaalada Jowhar wararkii ugu dambeeyay aynu idinkaga haynaa doorashada oo si weyn isha loogu hayay rajo laga qabo in kansarka daawo loo helo iyadoo tijaabada baaris cusub oo dhiigga ay bilaabatay kala soco BBC News Somali Television-ka raadiyaha online-ka iyo bogagga bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa si weyn loogu dhaliilay ka bixista Mareykanka ee Afghanistan markii ugu horeysay Kongareeska uu si rasmi ah uga hor cadeeyay kulan caro leh oo ka dhacay aqalka guddiga arrimaha dibadda waxa ay jamhuurigu ugu baaqeen inuu iscasilo balse Mr Blinken waxa uu difaacay howlgalka isaga oo ku celceliyay in madaxweynihii hore Donald Trump uu wada xaajood kala galay Taliban wuxuu sheegay in maamulka Biden ay ka dhaxleen waqti aan laga gudbi karin oo aan la qorshayn markii uu xafiiska la wareegay madaxweyne Biden waxa uu markiiba la kulmay kala doorasho ah in la joojiyo dagaalka ama la kordhiyo haddii uu san raacin ballanqaadkii ka horeeyay weerarada lagu qaadayo ciidamadeena iyo kuwa xulafadeena ayaa dib u bilaaban lahaa iyo weerarada Daalibaanku ay ku qaadayaan magaalooyinka waaweyn ee Afghanistan taasina waxay u baahnaan lahayd in ciidamo aad u badan oo Mareykan loo diro Afghanistan si aan isku difaacno ugana hortagno qabsashada Taliban arrinta Pakistan ayaa shalay sidoo kale soo baxday Mr Blinken waxa uu sheegay in dalku uu leeyahay dana badan oo qaarkood ka hor imaanaya kuwooda wuxuuna intaa ku daray tani waxa ay ka mid tahay waxyaabaha aan eegi doono maalmaha iyo toddobaadyada soo socda doorka Pakistan uu ka qaatay 20 sano ee la soo dhaafay iyo sidoo kale kaalinta aan doonayno inaan aragno iyo inay ka cayaaraan sanadaha soo socda iyo waxa ay taasi qaadanayso in la sameeyo ayuu yiri dhinaca kale deeq-bixiyayaasha ayaa u ballan qaaday Afghanistan in ka badan $1 bilyan oo gargaar ah kadib markii qaramada midoobay ay ka digtay in musiibo soo fool leedahay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa shirka Geneva waxa uu ka sheegay in heerka saboolnimada dalka yahay mid aad u daran dad badanna cuntada ay ka dhamaanayso dhamaadka bishan wuxuu sheegay in dalalka kale uu waajib ka saaran yahay Afghanistan dadka Afghanistan nolol ayay u baahan yihiin tobaneeyo sano oo ay ku soo jireen dagaal iyo silic iyo amaan xumo hadda waxay wajahayaan xilligii ugu adkaa waa waqtigii beesha caalamku ay garab istaagi lahayd aan caddeeyo halkan shirkani ma aha mid aynu wax ugu ururinayno ee waxa weeye waxa ay naga mudan yihiin reer Afghanistan BBC-du waxay heshay oo ay xaqiijisay muuqaalo muujinaya dad rayid ah oo Taliban ku dileen Afghanistan waxa sidoo kale la xaqiijiyay in dad badan oo 20 qof lagu dilay gobolka Benshir halkaasi oo Taliban ay kula dagaalamayeen xogaga mucaaradka afayeen u hadlay Taliban ayaa beeniyay in dilal noocaasi ay dhaceen laakiin ay baari doonaan warbixintan waxa soo diray wariyaha BBC-da Yalda Hakim Imaan Cabdullaahi Maxamed ayaana soo jeedinaysa muuqaalo naxdin lena way ku jiraan ee la socda waxaa wadooyinka Kaabul ka socda arrimo argagax leh Taalibaanka ayaa la maningeliyay gaari gadaashiisa BBC-da ayaa xaqiijisay in kiiskani uu dhacay dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay oo uu ka dhacay aaga caasimadda oo dadku caan ku yihiin mucaaradnimada Taliban bulshada Benshiri ayaa hadda aad u baadigoobaya macluumaad kasta oo ku saabsan eheladooda BBC-da ayaa xaqiijisay in kooxda Taalibaanku ay geysteen ku xadgudubka xuquuqda aadanaha ee dooxada Benshir waxay u jirtaa 150 kiiloomitir waqooyi bari ee Kaabul digniin waxaa laga yaabaa inaad ku murugooto fiidiyowgan halkan nin dhar ciidan xiran ayaa la kaxaystay
ma cadda in uu ku jiro ciidanka. Kani waa labiska caadiga ah ee laga xirto meesha. Codad ayaa kor loo qaaday. Ibriqsiyo kadib dhowr xabadood ayaa lagu dhuftay waana la dilay. Kuma tusayno muuqaaladan. qof goobjoog ah ayaa ku adkaysanaya in ninka ay hadda dileen uusan ku jirin ciidanka. BBC-da ayaa xaqiijisay in ka badan 20 qof la dilay tan iyo markii Taalibaanku ay soo galeen gobolka. Mid ka mid ah wuxuu ahaa dukaanle iyo aabba dhalay 2 caruur ah oo lagu magacaabo Cabdulsaami. Waxa ay ku eedeeyeen Taalibaanka in uu ka iibiyey mucaaradka kaararka telefoonada. Dadka deegaanka ayaa kula taliyay in uu iskaga tago markii ay Taalibaanku yimaadeen, laakiin wuxuu sheegay in uu ahaa nin sabool ah oo aan dagaal ku lug lahayn. afhayeenka Taalibaanka ayaa BBC-da u sheegay in dadka ra'yidka aan la bartilmaameedsanayn. waxaanu bilaabi doonaa baaritaan ma hayo wax war ah oo ku saabsan kiiskan iyo goobta uu ka dhacay. haddii qaar ka mid a maleeshiyadu ay soo weerareen askarteenna, dagaalyahanadiinnu waxay xaq u leeyihiin inay isdifaacaan. hay-adda xuquuqda aadanaha ayaa sheegaya in Taalibaanku ay jebinayaan sharciga caalamiga ah. waxaan xaqiiqdii diiwaan gelinaynaa xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee dalka oo dhan iyo arrimahan ka dhacaya gobolka Banshiir, dilalkan lala beegsanayo ciidamadii hore ee amniga. markii ay Taalibaanku soo galeen dooxada Banshiir, waxay ballan qaadeen nabad iyo xasilooni, laakiin sawirradan waxay muujinayaan in dadku aysan sugayn in Taalibaanku ay ka soo baxaan ballanqaadkooda. iyadoo la jaray isgaarsiinta, waxaa aad u adag in la helo macluumaad. laakiin beesha caalamka ayaa uga digaya Taalibaan inay daawanayaan oo lagula xisaabtami doono ficiladooda. bal markaana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararkeena caawa. madaxweynaha ruushka Putin ayaa wadahadallo Moscow kula yeeshay hogaamiyaha Suuriya Bashar al-Assad. inta ay socdeen wadahadallada waxa uu dhaliilay joogista ciidamada shisheeye ee Suuriya. Mr. Putin waxa uu ula jeeday ciidamada Mareykanka iyo kuwa Turkiga, kuwaas oo uu ku sheegay sida ciidamada Ruushka oo kale inaysan ogolaansho ka haysan dowladda Suuriya. faragelinta Ruushka ee Suuriya 6 sano ka hor waxa ay caawisay in uu xukunka sii joogo madaxweyne Assad. hay-adda xuquuqda aadanaha Lontos Foundation ayaa ku boorisay dowladda Britain inay ka hor istaagto safiirka cusub ee Rwanda ee London. waxa ay sheegtay in Johnston Busiyenge uu gacan ka geystay xariga Paul Rusesabagina oo dowladda dhaliila, kaasoo lagu metelay filimkii Hotel Rwanda ee lagu badbaadiyay qowmiyadda Hutuga intii uu socday xasuuqii 1994. Mr. Rusesabagina ayaa loo dhigay dabin uu kaga soo laabtay dibadda joognimadii uu ku maqnaa, wuxuuna wajahay eeda argagixiso. baaritaan ay BBC-da ku samaysay xogta isbeddelka cimilada adduunka ayaa lagu ogaaday in cimilada kulul ay laabantay 40kii sano ee la soo dhaafay, iyadoo laga dareemay meelo badan oo adduunka ah. dalka Nigeria isbeddelka cimilada waxa uu burburiyay dhulkii hore ee barwaaqada ahaa, waxa ayna dad badan ku qasbanaadeen inay ku noolaadaan kulayl si kordhaya oo aan loo adkaysan karin. wax soo saarka shidaalka ee dalka uu leeyahay ayaa dhibaatada sii kordhiyay, iyadoo malaayiin qof oo reer Nigeria ku qasbanaadeen inay ku noolaadaan agagaarka goobaha gaaska sunta ah ee saldhigyada shidaalka. BBC-du waxay bilaabaysaa barnaamij taxanaha oo aan ugu magac darnay nolosha joogtada ee heerka 50 darajo oo aan uga gol leenahay sida aadanuhu ula qabsanayo kulaylka xad dhaafka. Mawlid Xaaji Cabdi ayaa ka waramaya. kulaylka cadceedda iyo holaca ka baxaya ceelasha koonfurta Nigeria ee shidaalka hodanka ku ah Joy waxay halis gelinaysaa nolosheeda si ay u taageerto qoyskeeda. heerkulka halkan wuxuu gaarayaa heerar karkaraya, laakiin inkastoo ay jirto qatar, Joy waxay u isticmaashaa kulaylka si ay u dardargeliso qalajinta geedkan moxogga. sababta aan u leeyahay timo gaagaaban waa sababtoo ah haddii timahaygu baxaan, madaxaygu wuu guban karaa haddii ololku u soo leexdo jihadayda. isticmaalka shidaalka dhagaxa madow ee adduunka oo dhan ayaa saamayn xun ku yeeshay cimilada Nigeria. dalka xaggiisa waqooyi waxaa ka jirta abaar ba'an, koonfurtana daadad ayaa ku dhuftay. markii aan yaraa cimiladu sidan ma ahayn, marka waxaan u malaynayaa in adduunyadu sii dhammaanayso. sidaasi oo ay tahay, Nigeria sidoo kale waxay si weyn u soo saartaa shidaalka oo leh dhibaato gaar ah. tani waa sida gaaska ay u huriyaan. dadka dhulkan degan waxay la ildaran yihiin faqri aad u ba'an. holcintu waa habka lagu gubo gaaska dabiiciga ah marka shidaalka la soo saarayo. habkaasi wuxuu xudun u yahay qiiqa hawada
oo isbeddelka cimilada Nigeria dhibaato ku ah sidoo kale dalkana sharci darro ayuu ka yahay ha yeeshee ilaa 2 milyan oo reer Nigeria ayaa ku nool meel 4 kiiloomitir u jirta dabka ka dhashay gaaska oo ay ku jiraan Joy iyo carruurteeda. This is my children. Joy ka shaqaynta agagaarka ololka gaaska waa hal dariiq oo ay nolosha ku maarayso. waxay u xun tahay caafimaadkeenna laakiin waxaan leenahay maxaa naga galay waxaan u baahannahay inaan taageerno qoysaskeenna. Joy iyo carruurteeda ayaa 4 maalmood si toos ah u shaqaynayay waxay ka shaqaynayeen maxogga si ay qoyska uga caawiyaan bixinta qarashka aaska hooyadeed. markii aan imid akbaarha shaqo ma haysan waxaan arkay dumar ka shaqaynaya maxogga kadibna waxaan ka codsaday inay i baraan. inkastoo ay u baahan yihiin lacag qoyska Joy weli waxay rabaan in ololka gaaska uu istaago. aragtidayda dawladdu waa inay horseedaa dadaalada lagu soo afjarayo gaasaska ka baxa warshadaha shidaalka waxaana rajaynayaa inay si weyn hoos uga dhigi doonto kulaylka iyo khataraha caafimaadka la xiriira. horumarka dhaqaale ee Nigeria wuxuu aad ugu tiirsan yahay dakhliga shidaalka haddana warshadaha ayaa ka dhigaya mid ka mid ah kuwa ugu weyn ee Afrika ee hawada ku sii daaya qiiqa ilaa iyo inta dawladdu ka dhabaynayso ballanqaadkeedii ahaa in la soo afjari doono gubista gaaska sanadka 2030 muuqaalka dalka nolosha iyo habnololeedka malaayiin sida Joy ayaa weli halis ku jira. waxay noo soo socda rajo laga qabo in kansarka daawo loo helay iyadoo tijaabo baaris cusub oo dhiigga bilaabatay. caawiya caalamka ayaad weli daawanaysaan aan idin xusuusiyo qodobada wararkeena ugu waaweyn. xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa difaacay in Mareykanka ka soo baxeen dalka Afghanistan isaga oo sheegay in sii joogis aysan waxba kordhinayn.
doorashada xubnaha aqalka sare ku matali doona maamul goboleedka Hirshabelle ayaa ka socota magaalada Jowhar. Wararkii ugu dambeeyay ayaynu idinkaga haynaa doorashada oo si weyn isha loogu wada hayo. doorashada Jowhar ayaanu ku sii soconaynaa magaalada xarunta u ah Hirshabelle. waxaa maanta ka dhacaya doorashada xubnaha aqalka sare ku matali doona maamul goboleedkaas. haddaba wararkii ugu dambeeyay doorashadaasi sida ay saakito ku bilaabatay xubnaha tartamaya waxaa inoo haya oo magaalada Muqdisho kala socotay oo toos hadda qadka ugu jirta waryaheena Beella Sheegow. Beella, maxaa u dambeeyay doorashadii? waxaan filayaa inay ilaa xilli dambe soo gaartay. goboleedka Hirshabelle waa maamul goboleedkii ugu dambeeyay ee doorashooyinka aqalka sare ee baarlamaanka 11aad ee dowladda federaalka Soomaaliya maanta qabta. doorashadani waxay ahayd midii ugu adkeed ugu xamaasada badneed loolanka ugu adagna uu ka jiray marka la barbardhigo maamul goboleedyada kale ee ka horeeyay ee doorashada qabsaday. musharaxiin fara badan ayaa tartamayay kuraasta qaar xataa in ka badan 5 musharax ayaa u tartamaysay. hadda waxaa soo gabagabowday doorashada kursigii ugu horeeyay ee kamid ah 8 kursi ee maamulka Hirshabelle ay leeyihiin oo ahaa kursigii ugu doorashada adkaa oo 5 musharax ay ku tartamaysay wareegii labaad balse isku soo hareen 2 musharax markii musharaxii saddexaad uu asaga tanaasulay. waxaana hadda soo baxay oo sida lagu dhawaaqay Muuse Suudi Yalaxow oo baarlamaanka doorkan ku matali doona kursigaasi aqalka sare markii labaad oo la doorto waaye. haddii aan fiirino doorashadani wali waxa haray 2 kursi kale maantana waxaa lagu balansanaa 3 kursi in doorashooda ay dhacdo. doorashadani waqti dheer ayay qaadatay maadaama musharaxiin badan ay u tartamayeen. waxaana muuqata in ilaa xilligan la soo gaaray maadaama uu dib dhac yar uu ku yimaaday balse diyaar garowga doorashadan saaka ayuu soo bilaamaday. waa tahay Beella, waa doorasho adag ay ahayd midda maanta dhacday. marka ay tan caawa dhamaato maxaa gobolka haray oo dhiman xubnaha kale oo dhici doona maalmaha soo socda? dabcan waxaa dhameystiri doonaa xubnaha kale ee harsan. maamulkan ma aha kaliya maamulkii u harsan yihiin in ay dhameystiraan kuraasta doorashadooda, sidoo kale maamulka Galmudug iyo Jubbaland ay iyaguna waxay u harsan tahay inay dhameystiraan doorashada kuraastooda. maamulada kale ee iraahda ee Koonfur Galbeed Puntland ayaa iyaguna sidoo kale waxa ay dhameystireen doorashadoodii halka kuraasta Soomaaliland ay wali ay harsan tahay in la qabto. Beella Sheegow, aad ayaad u mahadsan tahay. wixii warar ka soo kordha oo ku saabsan doorashadaasi Hirshabelle ka socota waxaan dib ayaan idinkala soo socodsiin doonaa iyada oo aan caawa ay soo gaartay taasi. xubnaha kalena ay mar dhow bari iyo wixii ka dambeeya maalmaha soo socda ay dhici doonaan. waa mahadsan tahay Beella. kadib weeraradii argagixiso ee 11 September Mareykanka waxaa kor weyn laga dareemay dambiyada isir nacaybka ku salaysan. dadkii uu dhibka ka soo gaaray waxaa ka mid ah Belber Singh Sodi oo nin Sikh Mareykan ah. gadweyn ayuu lahaa, madaxana waa uu duubnaa. waxa uuna maamulo ka ahaa kaalin shidaal oo qoyskiisu ay ku lahaayeen halkaa ku taalay magaalada Mesa ee gobolka Arizona. dilkiisa oo dhacay 4 maalmood kadib 11 September markay weerarada dhaceen waxa uu ahaa dambigii ugu horeeyay ee midabta kor ku salaysan ee weeraradaasi ka dhasha. BBC-da waxay la hadashay Belber walaalkii, wiilkiisa iyo ninkii hubaysnaa Franka Silver Rock. qoyskii Sodi waxa ay ogolaadeen in gacan ku dhiglaha lagu soo diro sheekadan. warbixintan waxaa ku jira muuqaallo aad dhibsan kartaan. Losing a brother, I think I lost geerida walaalkay waxa aan ku waayay jacayl badan. wuxuu ila dhaqmi jiray sidii walaal habaya ilmo yar oo jacayl tusaya. saaxiibo ayaannu ahayn, mar walbana waannu ka hadalnaa. sheeko kasta oo aan isla soo qaadno dhammaanteen qoyska waxaa soo gala magaciisa. There is conversation going on, then his name is come out. We were also shocked when we saw that dhammaan aad ayaanu u argagaxnay markii aanu muuqaalka ka aragnay telefishinka diyaarado dhismayaal galaya. saacado yar kadib telefishinada ayaa lagu baahiyey muuqaalada Osama bin Laden. bulshada aan ka tirsanahay ee Siiqa waanu ogeyn. waxa aanu dhammaan ogeyn in arrintani ay saameyn xun ku yeelan doonto dadka Siiqa.
waxa aan wacay aabbahay si aan ugu sheego inuu taxadiro maxaa yeelay duuba ayuu madaxa ku xirtaa waa hagaag waa nabad qaba dhib badani ma jiro ayuu ugu yidhi dadka oo dhan ayaa la wanaagsan waa markii iigu dambaysay ee aanu sheekaysanno ninka dilay balbiir franka silver rock ayaa b b c da uga sheekeeyey dembigiisa sannad kasta murugo ku aadan sida aan qoyska u dhibaateeyey ayaan dareemaa waxyaabaha iga hor istaagay inaan sida qof bini'aadam ah oo aniga oo kale ah u arko waxay ahaayeen wixii dhacay iyo wararka burburkii 11 sebteembar haween dhismayaal sare ka soo boodaya oo geeridu sugayso waa murugo iyo xanuun inteeda la'eg frank silva sida aan u arko horta weligay lama kulmin keliya waxa aan arkay maalmihii uu kiiska maxkamaddu socday waxa la i weydiiyey ma cafisay ninkan waxa aan ku idhi maya mana lihi awood aan ku cafiyo waxa uu dilay aabbahay sidee baad ku cafin kartaa qof sidaasi sameeyey haddii aysan 9/11 dhici lahayn waxan oo kale kuma dhici lahayn aabbahay malaha waxaa dhici lahaa inuu halkan nala joogi lahaa isaga oo noloshiisa ku raaxaysanaya dhacdada ayuu dhibana u yahay inkastoo aanay isku maalin wax wada dhicin aabbahay waxaa galaaftay 9/11 markana wararka ciyaaraha ee caawa everton ayaa hadda waxay la dhibcan noqotay kooxaha kale ah manchester united chelsea iyo liverpool oo liiska horyaalka ingiriiska kaga jira halka ugu sarreeya kadib markii ay 3-1 kaga badisay Burnley meel hoose ayay ka soo kaceen guusha naadigaasi u gaarina waxaa mahaddeeda iska leh ciyaartoyda kale ah Michael Keane iyo Andros iyo Demarai Gray maamule Benitez waxa uu sheegay in uu ku faraxsan yahay sida uu ciyaarahan ay ku bilaabeen xilli ciyaareedkan caawa iyo Champions League-na waxaa dhacaya 8 kulan naadiga difaacanaya Champions League Chelsea waxay Stamford Bridge isku arkayaan St. Petersburg macalinka Chelsea waxa uu sheegay in ciyaartoydiisa in ay iska iloobaan koobkii ay qaadeen oo ay hadda diiradda saaraan xilli ciyaareedkan Manchester United-na waxa ay marti u yihiin naadiga Young Boys waxa uu macalinkooda iyana u sheegay wax aan guul ahayn inaysan doonin tijaabada baaritaan dhiig cusub oo lagu ogaan karo in ka badan 50 nooc oo kansar ah ka hor inta aysan calaamadihiisu soo muuqanaysan bannaanka iman ayaa ka socota 8 goobood oo waddankan England ah ujeedada waa in la qoro 140,000 oo mutadawiciin ah oo da'doodu u dhaxayso 50 ilaa 77 sano si loo ogaado sida wanaagsan ee baaritaankan uu u shaqaynayo dhowr sano ayayna soconayaan aadan maxamed cabdisaalimiin ayaa ka warramaya beerta tafaariiqda ee waqooyi galbeed ee England mid ka mid ah tijaabooyinka caafimaad ee ugu weyn adduunka ayaa ka socda kumaankii ugu horreeyey oo mutadawiciin ayaa bixinaya saami dhiig si loo baaro jiritaanka raadad yar oo DNA ah oo ku xiran burooyinka digniin ku saabsan cudur iman kara mutadawiciinta sida Stewart oo ah sargaal ka tirsan ciidanka dabdamiska waxay u muuqataa fursad wanaagsan inaan ka qayb qaato nasiib darro inteena badan waxaa nagu dhacay kansar waqti nolosheenna ka mid ah in horeba loo ogaado waa shay ka caawin doona difaaca looga hortagayo taas ogaanshaha iyo daweynta kansarka goor hore ayaa furow ah soo bogsasho midho dhala laakiin kansarka qaarkiis sida kan madaxa iyo qoorta ama ganaca ku dhaca way adag tahay in la ogaado marxaladaha hore baaritaankan dhiigga ayaa gacan ka geysan kara in laga baaqsado qalliimo culus waxaa jira fursado badan halkan waxaa lagu ogaan karaa oo keliya noocyo kala duwan oo kansar kala duwan ah laakiin waxaa laga yaabaa in qaar ka mid ah ay ku jiraan heerka koowaad laakiin waa muhiim in aan hadda u tijaabino baaritaan si aad u weyn kana shaqayna haddii hore loogu ogaan karo kansarka sanado badan saynisyahanadu waxa ay isku dayeen inay horumariyaan tijaabooyin dhiig oo fudud oo lagu ogaan karo kansarka ka hor inta aanay calaamadihiisu soo muuqan laakiin runtii waa ay dadaalayeen maxaa yeelay baaritaanadu ma ahayn kuwo sax ah oo ku filan waxaa jiray waxyaabo badan oo been abuur ah ama diidmo been ah teknolojiyadu runtii waa tan isbeddelka keentay ugu horrayn waxaannu u baahannay in aan awoodno inaan ogaanno cadad aad u yar oo DNA ah oo ku jira dhiiggeenna awooddaaan u leennahay in taas aannu samayno way soo hagaagtay markaa dhowrkii sano ee lasoo dhaafay tan labaadna waa awoodda xisaabinta casriga ah waxaannu eegnay xogta 10,000 qof
waxaanan u adeegsanay xogtaasi si aan runtii u wanaajinno baarista. tani waa tijaabo caafimaad oo bilow ah, laakiin haddii ballanqaadka tijaabadan fudud la buuxiyo waxa ay calaamad u noqon kartaa bilowga isbeddel ku yimaada daweynta kansarka. caawana waxaan idin haynaa 10 sano ka hor ilaa iyo markii ay dabar go'een nooc ka mid ah maroodiga dhogorta leh ayaa waxa ay saynisyahanadu sameeyeen diyaargarow ay ku haminayaan inay noocaasi soo celiyaan. shirkadda cilmiga sayniska noolaha iyo hidisidaha Colossal ayaa sheegtay in ay doonayso in ay soo celiso 5 sano gudahood dugaagii Arctic Thunder. si kastaba ha ahaatee shaki weyn waxaa hareeyay mashruuca, iyadoo saynisyahanada qaarna ay leeyihiin in natiijada ugu dambaysa waxay noqon kartaa maroodi hidisidiisa wax laga bedelay. mar walba waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook, fadlan raadi BBC News Somali, halkaasi ood ka heli doonto muuqaallo falanqayn dheeraad ah iyo wararkii ugu waaweynaa iyo sidoo kale wararkii ugu dambeeyay si aad u hesho ee Soomaaliya caalamka nagala soco BBC Somali Twitter iyo Instagram iyo YouTube-ka oo haddaba toos nooga daawanaysaan. intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeena caawaya caalamka. waad ku mahadsantiin daawashadiina. inta aan habeen dambe kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.